muxuu yahay halbeegga lagu qiimeynayo boqolka maalmood ee uu xafiiska joogay madaxweyne xasan sheekh maxamuud filashada bogaadinta hambalyeynta iyo dabaaldegga lagu soo dhoweeyey waxaa barbar yaalay xaalad halis ah oo waddanku ku sugnaa abaaro amni xumo hubantila'aan siyaasadeed iyo Soomaali aan heshiis ahayn ayuu madaxweyne xasan sheekh 23 May la wareegay xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya amniga qorshaha amniga qaranka ee dawladdu ku wajahayso ciribtirka argagixisada aafeysay shacabka ayuu madaxweynuhu sheegay inuu yahay mid saddex geesle ah cudud ciidan in cadawga lagu wajaho cunaqabateyn dhaqaale iyo wacyigelin bulsho taasi oo looga hortagayo fikirka gurracan iyo fasiraadda qaldan ee ay ka bixiyeen diinteenna suuban dagaalka shabaab uu maanta madaxweynuhu rabo inuu ku hogaamiyo waa dagaal loo yaqaano total war oo ah in dhammaan bulshada Soomaaliyeed ay si wada jir ah ay uga hortagaan shabaab waa cadow Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeedna in sidaas loo tuso oo ay qayb qaataan waxaa jira inta qorshayaashaas iyo aan abaabulayno howlgallo lagu sii carqaladeynayo ama lagu joojinayo dardartii ay rabeen in ay dadka Soomaaliyeed ku dhibaateeyaan ayaa markiiba laga howlgalay oo gobolada kala duwan ee Galmudug iyo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ciidamada xoogga dalka iyo shacabkii oo iskaashanaya laga howlgaliyay oo ilaa 46 howlgal oo kala duwan lagu qabtay boqolkii maalmood ee la soo dhaafay waxaana lagu xoreeyay deegaanada cadawgu haystay waxaa dardar xoogan ku bilowday qorshaha baraarug bulsho oo ay hormud u yihiin culimada kaasi oo lagaga soo horjeedo argagixisada banaysatay dhiigga shacabka Soomaaliyeed ee muslimiinta ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu booqday ciidamada xoogga dalka ee tababaradu uga socdaan wadamada Turkiga iyo Eritrea waxa uuna u kurgalay xaaladooda madaxweynuhu isagoo uu fulinaya ballanqaadkiisii doorashada waxa uu la soo ciiday ciidamada qaranka ee tababarka u jooga Eritrea waxa uuna xusay sida shacabka Soomaaliyeed ugu farxayaan muuqooda halka cadawga argagixisadu ka naxayaan cududooda maalintaan arkay leeyri xasan sheekh maxamuud wuxuu u duulay Eritrea waa iiga dhamaatay abdi baa leeyraa wiilkaygu inuu sariirta jiifay la ahayd talaabada madaxweynaha jamhuuriyadda ugu kuurgalay ciidamada Soomaaliyeed ee tababarka u jooga Eritrea booqashadiisa ciidamada ku sugan Sparta kormeerka wasaaradda difaaca ka warqabkiisa ciidamada ku tababarta dugsiyada dalka iyo dhiirigelinta kuwa furimaha hore ku baacsanaya al-shabaab waxa ay tilmaan sugan ka bixinayaan sida dawladdu ugu diyaar garoobayso fulinta qorshaha amniga qaranka shaqadii ugu horeysay ee madaxweynuhu qabta ayay ahayd inuu ka howlgalay badbaadinta hanaanka deyn cafinta dalka HIBC oo soo bilowday sanadkii 2013 balse galay marxalad halis ah dhowr bilood oo waddanku ku sugnaa xaalad hubanti la'aan ah oo ay dhici kartay inuu gabi ahaanba fashilmo 24 May golaha hay'adda lacagta adduunka IMF ayaa ansixiyay codsigii madaxweynaha waxaana sidaas lagu badbaadiyay hanaanka deyn cafinta dalka ee halista ku jiray miisaaniyadda 6 bilood oo miisaaniyad la'aan ay ku howlgalayeen hay'adaha dawladda kadib 26 May golaha wasiirada Soomaaliya ayaa ansixiyay miisaaniyad sanadeedkii ugu badnaa burburkii kadib labada aqal ee baarlamaanka dalka ayaa ansixiyay miisaaniyadda waxa uuna dalku yeeshay miisaaniyad sharci ah kabka miisaaniyadda waxaa halis galay mushaarka ciidamada iyo shaqaalaha kala duwan ee dawladda dalkan muddo sanad ah waxa mushaaraadkiisa iyo laga bixinayay deen laga qaatay IMF oo la yiraahdo SDR kabkii miisaaniyadda caadiga ah deenta ahayn ee dalkan la siin jirayna waa joogsaday marka doorashadii kadib madaxweynaha wuxuu dadaal dheeraad ah u galay sidii kabka miisaaniyadda loo soo fasaxi lahaa si aanan halis u galin mushaaraadkii la siin jiray ciidamada iyo shaqaalaha qaar ee dawladda marka bishii June bangiga adduunka wuxuu fasaxay lacag ku dhow 100 milyan oo dollar oo kabka miisaaniyadda ah midowga Yurub sidoo kale 13 milyan oo dollar buu dawladda u soo fasaxay dadaaladii iyo furfurnaantii madaxweynaha la yimid ayayna arintaasi ku timid iyadoo oo la dhiirigelinayo maalgashiga ajnabiga ee tooska ah bangiga dhexe ee dalka ayaa shatiyo siiyay bangiyada Misr Bank iyo Siraad Bank ee laga leeyahay dalalka Masar iyo Turkiga
si ganacsiga Soomaaliya loogu xiro dalalka kale ee Afrika. Madaxweyne Xasan Sheikh oo ay weheliyaan madaxda shirkadaha waaweyn ee dalka, wasaaradaha ganacsiga, qorsheynta, arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga ayaa gudoomiyay shirka ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliya iyo Uganda, kaasi oo lagu kala saxiixday heshiisyo muhiim ah oo labada dalba faa'iido u leh. Soomaali heshiis ah in looga gudbi karo caqabadaha ku horgudban dhamaystirka qarannimadeena ayaa ah qodobka koowaad ee siyaasadda lagu hagayo dawladda. Ka hor inta aan la caleemo saarin ayuu madaxweynuhu booqday maamulada Koonfur Galbeed iyo Galmudug. Safarkan ayuu madaxweynuhu ku muujiyay siyaasaddiisa ku dhisan heshiiska, wada shaqaynta iyo iskaashiga ee uu ku shaqayn doono sanadaha soo aadan. Waxa uuna fariinta Soomaali heshiis ah gaarsiiyay siyaasiyiinta, odayaasha dhaqanka, dhalinyarada iyo haweenka. dadka Koonfur Galbeed dawladda federaalka xaggeeda nabada idinka jirto, saaxiibtinimo idinka jirto, mas'uuliyad iyo dadkii idinku aad xilka u dhiibateen si toosan iyo si dadbanba aad xilka u dhiibateen oo adika aad wakiilateen idinka jiro. caadi iska dhiga haddii dadka qaar ay dhihi jireen bas waa buuxayo meel laga fuulo male tareen aan dhammaanaynaa taagan, aan tareenka wada raacno, muxuu ahay nabadda iyo aayahana aan aadno. si loo gaaro jawi xasiloon oo maamulada iyo dawladda federaalku ku wada shaqeeyaan, waxaa Muqdisho ku qabsoomay shirka golaha wada tashiga qaranka oo aan muddo qabsoomin. Shirkan oo 2 maalmood socday waxaa ka soo baxay heshiisyo ay horey u adkeyd in la gaaro, waxaana ka mid ah hannaanka amniga qaranka, kaasi oo qayb mugla ka qaadanaya xoreynta iyo la dirirka argagixisada si midaysan, nidaam doorasho oo mudaysan, iyo in doorasho dimuqraadi ah dalka ka dhacdo, mudnaansiinta dib u heshiisiinta siyaasadeed iyo midda bulsho ee guud ahaan dalka, iyo hannaan garsoor oo madax bannaan. jawi siyaasadeed oo deggan ayuu shirkan ku qabsoomay, waxaana isbeddel ku yimid kala shakigii iyo isdiidooyinkii dhex yaallay madaxda qaranka, iyada oo loo jihaystay midnimo iyo xasilooni in lagu fuliyo qorshayaasha qaranka lagu hormarinayo. magaalo madaxda Puntland ee Garowe ayuu sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyaddu ku tegey safar qaatay 5 maalmood oo ku qotomay xaqiijinta hiigsiga Soomaali heshiis ah. waxa uuna wada tashiyo mira dhalala yeeshay madaxda sare ee dawlad goboleedka iyo qaybaha bulshada Puntland. Soomaali dariskeeda iyo dunidaba heshiis la ah si loo gaaro, madaxweyne Xasan Sheikh waxa uu ku howlgalay siyaasad arrimo dibadeed oo ka madax bannaan colaysi, iyada oo danta Soomaaliya lagu raadinayo iskaashi, dal walbana uu ixtiraamayo madax bannaanida siyaasadeed iyo tan dhuleed ee dalka kale. madaxweynuhu waxa uu safarro ku tegay dalal uu qaarkood xiriirkooda hoos u dhac ku yimid. safarradan waxay ahaayeen kuwa mira dhalay oo lagu gaaray heshiisyo iskaashi, amni iyo ganacsi. Imaaraadka oo dib loo soo celiyay xiriirkii uu dalkeena la lahaa, waxaa ka soo baxay heshiis lagu hagaajinayo xiriirka iyo iskaashiga labada dal, fududeynta dhaqdhaqaaqa ganacsiga, isku socodka muwaadiniinta iyo gargaarka abaaraha. Turkiga gacansiin dhanka amniga ah, iskaashi dhaqaale iyo isdhexgal bulsho. Eritrea xoojinta wada shaqaynta siyaasadeed iyo tan diblomaasiyadeed si loo ilaaliyo loona hormariyo danaha labada qaran, iyo kor u qaadidda iskaashiga difaaca si loo ilaaliyo nabadda, xasiloonida iyo amniga. Kenya iskaashi amni, dhaqaale iyo mid siyaasadeed ee labada dal, heshiis meesha ka saaray caqabadaha dhanka socdaalka ee ka dhashay madmadowgii ku jiray xiriirka labada dal. Iskaashi ganacsi, iyada oo la furay sohdimaha Soomaaliya iyo Kenya, taasi oo qayb ka ah fududeynta dhaqdhaqaaqa badeecadaha iyo adeegyada labada dal. Djibouti soo celinta xiriirka walaalnimo ee ka dhaxeeya labada jamhuuriyadood oo hoos u dhac ku yimid. Djibouti iyo Soomaaliya labada jamhuuriyadood iyo labada shacabba waxaa ka dhaxeeya waxaan birina goyn, biyana aanay meerin. taariikha naga dhaxayso, dhaqana naga dhaxeeyo, diina naga dhaxayso, dadnimo ama maxuu ahay cirqiga naga dhaxeeya. waxaasi markaa wax oo ama siyaasad ay kala reebi karto, ama xuduudo ay kala reebi karaan, ama laba calan inaan kala leenahay ay kala reebi karto ma aha. Tansaaniya ka mid noqoshada dalladda bulshada bariga Afrika. madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa soo nooleeyay
codsigii Soomaaliya ay ku doonaysay inay ku biirto suuqa dalladda bulshada Bariga Afrika oo 7 dawladood ay ku bohoobeen madaxweynaha oo ka qayb galay kunal madaxeedka dalladda Arusha Tansaaniya ka dhacay 22 Juulaay 2022 waxa uu taageero ka helay dhammaanba madaxda dalladda waxaana la filayaa in Soomaaliya ay ku biiri doonto dalladdan kadib marka la buuxiyo shuruudaha loo baahan yahay Masar taageero horumarinta waxbarashada taageero dhismaha ciidamada la dagaalanka argagixisada iyo xoojinta xiriirka taariikhiga ah ee ka dhaxeeya labada dal Uganda heshiis ku saabsan iskaashiga amniga gobolka adkeynta difaaca labada dawladood fududeynta maalgashiga isdhaafsiga ganacsiga iyo kobcinta wax soo saarka waxaa qabsoomay madaxda ganacsiga Soomaaliya iyo Uganda oo ganacsatada Soomaaliya ay ku soo bandhigeen fursadaha maalgashiga ganacsiga iyo wax soo saarka dalkeena boqolka maalmood ee uu xafiiska joogay madaxweyne Xasan Sheikh Soomaaliya waxa ay heshiis la tahay deriskeeda Soomaaliya waxa ay higsanaysaa ku biiridda dalalka ku bahoobay dalladda bulshada Bariga Afrika Soomaaliya waxa ay soo celisay xiriirkii dalka aan walaalaha nahay ee Djibouti abaaraha madaxweyne Xasan Sheikh ayaa xilka la wareegay iyadoo ay dalka ka jiraan abaaro ba'an oo aafeeyay dad iyo dunyaba abaarta oo ahayd mid bila soo jiitamaysay ayuu madaxweynuhu maalmihii u horreeyay ee uu xafiiska fariistay diiradda saaray xal u heliddeeda isagoo u kuurgalay baaxaddeeda iyo deegaanada ay saamaysay 25 May ayuu magacaabay ergeyga gaarka ah ee abaaraha si shacabka Soomaaliyeed loogu jiheeyo inay iskaalmeeyaan indhaha caalamkana loogu soo jeediyo abaarta ka sii daraysay madaxweyne Xasan Sheikh waxa uu booqday dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu saameeyeen isagoo u dhageystay cabashadooda una kuurgalay baahiyahooda nololeed dadaalkii dawladda iyo qayladhaantii abaaraha ayaa suurtageliyay in gurmadka caalamku yimaado iyo in shacabka Soomaaliyeed baraarugaan oo ay kaalmeeyaan walaalahooda abaartu xoolo tirtay boqolka maalmood ee uu xafiiska joogay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud dawladdu waxa ay qabatay shaqo gogol xaar u ah qorshaha 4 sano ee lagu gaarayo dal nabad ah cadaalad ah oo barwaaqo ah waxaana qorshahani inuu guuleysto sal u ah Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah